In gabdho Soomaaliyeed dalka dibadiisa waxbarasho loogu diro ma ahayn wax ku cusub bulshada Soomaaliyeed, laakiinse 24kii saac ee la soo dhaafay waxaa soo baxay dhacdooyin qalbi jab ku ah waalidiinta Soomaaliyeed ee gabdhahooda waxbarashada ugu diray dalka dibadiisa. waxaana caalamkaasi toos ah looga daawaday gabdho Soomaaliyeed oo meel wado ah oo jalaatada lagu gado ku niikinaya, taasi oo calaamad su'aal saartay diinta ay haystaan. sawir fool xun ka bixisay dalkeena Soomaaliya oo ay gabdhahaasi ka soo jeedaan. waxaana si toos ah loo arkayay nin u dhashay dalka Turkiga oo iska lahaa goobtaas jalaatada lagu gado, caana ku ah qoobka ciyaarka oo leh yalla oo ula jeedo ku soco, isagoo aad ugu mashquulsan gabadha Soomaaliyeed jirkeeda. waxaana la ogaaday in ninkaasi gabdhaha Soomaaliyeed uu si gaar ah u bartilmaameedsanayo, iyadoo isbarbardhig lagu sameeyay gabdho cadaan ah oo iyaguna meeshaas ku niikinayay. uusan ninkaasi ku mashquulsanayn kuna dhiirigelinayn dambiga ay dhex dabaalanayaan. dhacdadaas ayaana noqotay mid si weyn loogu hadalhayo social media 24kii saac ee la soo dhaafay. waxaana jiray rag badan oo Soomaaliyeed oo arrintaas ka falceliyay. qaarkood ayaana talo ku soo jeediyay in ninkaasi la iska dhaho. kuwa kale ayaa soo jeediyay ninkan waa naga gar leeyahay, gabdhaheennana ayaga doontay isagu ma khasban. taas ayaana gar ku noqotay. si kastaba ha ahaatee, hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo gabdhahooda waxbarasho ugu diri jiray dalka dibadiisa ayaa laga yaabaa inay taas ka waantoobaan iyagoo maanka ku haya waxa dhici kara iyo sida loogu xadgudbay sharafta gabdho waalidkood waxbarasho u dirsadeen oo hadda shaashadaha soo qabsaday ayagoo jirkooda kula niikinaya niman ajaanibka ah. daawadayaal, sida u aragtaan falkan, maxaase u furan dadka Soomaaliyeed oo ay uga falcelin karaan arrintan?